ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay halka in kalena ku dhaawacantay banaanbaxyo lagaga soo horjeedo go'aan la sheegay in lagu bedelay taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer. Banaanbaxyadan ayaa waxa soo abaabulay banaanbaxayaal taageersan taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Axmed Cabdiraxmaan Ilkaase. Ilaa habeennimadii xalay ilaa caawa ammaanka magaalada Burco ayaa ahaa mid aan sugnayn. ciidamada ammaanka iyo militariga oo iskaashanaya ayaa ka waday gudaha magaalada howlgallo ay ku sugayeen ammaanka. waxaana loogu jawaabayay shiid dhagaxaana halka ay ciidamaduna rasaas kora ku jawaabayeen. inkastoo rasaastani galaafatay nafo markii ay hoos martay. banaanbaxan ayaa markii dambe isu rogay 2 kooxood oo banaanbaxayaal oo iska soo horjeeda oo aanay cadayn waxa ay isku hayaan. xubno isugu jira mas'uuliyiinta dawladda dhexe iyo hoose ayaa isku dayay in ay qaboojiyaan arrinka. wayna ku guuleysteen balse gadaal ayay dib uga sii bilaamatay. Allahu akbar Allahu akbar hadda ma isnagaysano waxa dhacay maanta waynu wada ognahay meyd bayna dul yaalla ina ma dhintay waxa la idinka baahan yahay inaynu ismaqalno wasiiradii waa soo kaxaynay wasiiradii waa kuwana wasiir Cabdi Daahir iyo Shukri Xaj Badr way la joogaan waxaan idinka doonayaa waxa laalayo wixii aynu ka cabanayno way la dhameynaya waan idin ballan qaaday. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar deer isdagaysano mar hadaynu sunnimi waxa doonaysan ana wax ka qabanaya ana wasiirkii gobolka ana wasiirkii Burca ya wasiir marka waxaynu ka qabanaa waxa laaliya waxa tirada wax ku qabanayna waar dhageysta waar hawshayn wada way dhamaatay ilka asal badali maayo. Allahu akbar hawsha wada maatay ila kala kaxaya. Allahu akbar shir jarayd oo ay si wada jira u qabteen gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji, gudoomiyaha golaha deegaanka Maxamed Muraad iyo xubno wasiir ah ayay ugu baaqeen reer Burco in ay nabadgelyada ilaaliyaan. waxayna ka warbixiyeen dhacdada sababtay dhimashada iyo dhaawac. inna Allahu wa inna ilayhi raaji'uun. alxamdulillah ala salaam. kulli maanta in shaqaaqa saaka cabaar 10 subaxnimo magaalada Burco ka bilaabatay taas oo ahayd aaga dawladda hoose ilaa iyo xarunta gobolka aaga area shacab runtii taas oo aan oran karo in khasaarihii ugu badnaa waana soo gaaray waxa dhimasho ah 1 qof dhaawacana waxa weeji waa 2 qof intaas kullu waa in rasaaseed wixii kale ee kulli dhagax ku dhacayna kulli iyaduna waa dhowr qof waan loo sheegay sida daraadeed waxaan leenahay cid allaaliya cidii dhibashadaas iyo dhibaatada soo gaadhay aad iyo aad baan uga tacsiyadeynaa waanu ka xunahay waxa halka ka dhacay kulli ficilka noocaasana anagu xukuumad ahaan qorshaanu ka leenahay sidii baaristeeda iyo dabagalkeeda iyo raadinteeda kulli waajibna saaran. waa nabadgelyo magaaladu xogaaga yar waa iska dhaceen laakiin hadda saacada aynu joogno waa nabadgelyo. waxaanan mahad gaar u celinaynaa wasiirada markaa noo yimi ee ilaahay nala soo kulmiyay oo hawsha qaybli wax ka qaatay. dadweynaha reer Burco waxaan u soo jeedin lahaa degmada Burco iyo dadka ku dhaqan in nabadgelyada la ilaaliyo xasiloonida la ilaaliyo. annagu waxaan xubno 4 wasiira wasiirka beeraha deegaanka iyo qorsheynta oo saaka u yimi mashaariicda deegaanka iyo daaqa ee aroori iyo arrimaha deegaanka aanu kormeer ku mareynay. marka waxay nala kulantay arrintan sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyihii degmadu shaqaaqay ahayd dhalinyaro mudaharaad ay ahayd. runtiina caalamka mudaharaadku waa jira laakiin mudaharaadadeenu seen marka taba sheegno wuxuu dhaliyaa xaalado khasaare ah oo nafeed oo maal oo dhibaato oo nabadgelyo xumo. sabaha mararka fara badan loo yiraahdo war mudaharaad dhalinyaro lagu sii dayo aan jihaysnayn wuxuu ku keenayaa ummadiina khasaar u keenayaa. maanta arrinka shaqaaqada mudaharaadka wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac. ilaahay waa sahlay marka loo eego say wax u dhaceen laakiin haddana waxa sii dhacaya haddaan halka lagu baqtiin waxa wax ka badan. marka maanta hadda way xasilantay magaaladu alxamdulillah rabbil caalamiin
odayaasha madaxda gobolka madaxda degmada xubnaha iyagii golaha wasiirada hay'adda waftiga yimi iyo intii ay saameysay ciidamada qaranka iyo ciidamada booliiska way ka hawlgaleen banaanbaxyada ka dhaca magaalada Burco ayaa badanaaba sababa khasaare Cabdi Maalig Musooldoon Samsad Burco